soo dhawaada saaxiibayaal mar kale maanta halkan waxaa kasii wada doona taxnihiini noo sii socodnay ayna laqadeeni kood ku dhamaatay waqtigu helaan waxay bilaabeen inay fikiraan karti muujiyaan inta muuqaalkeeni gudan sidii caadiga waxaan ku xasuusinaa muuqaalka la noo gala janalka subscribe door subscribe kuweyn aad iyo aad baa u mahadsan tahay maalintii xigta gabar bay hees qaada balse waxay heleen keli 15 saacadood lamarka lixaad ee muujixoogiisii wuxuuna dhagaxaan soo isticmaalay xirfadiisii kartida wuxuuna waqti badan lambarka labaad ee sidoo kale jibisa dhagaxaan si la mid ah balse gacanteedii aad u dhaawacantay waxay sidoo kale jibisa dhagaxaan iyo alwaax waxaynu ka 12 saacadood markii ay timi lambarka afraad waxay qaaday hees xun oo 4 saacadood oo keliya ah markii masrax ka dageysay sida maflan u siibatay taasoo aad u mabistay daabana waxaynu ka 6 saacadood dheeraad ah markaas ay jinso lambarka saddexaad marna si daro ma lahayn wax xirfad wuxuu qaaday ciyaar aad u dhigto dadkii u mutajileen runtiisna wuxuu ka helay 12 daqiiqo keliya markii lambarkii gobol gaar wuxuu ku maawisidii bal qosol badan dhammaan waxay ku farxeen bandhigiisii wuxuuna ka helay 3 saacadood markii lambarkii 8 la gaar kamaysan qaybkii bandhiga kartida halka waxay qolkeedii ku xisay lambarkii 6 arinta darteedii wixii 69 saacadood haddana waxay ogaadeen si waqtiga loo kordhiyo ma jirin baahi dandarad oo dhan si waqtigu u helaan sidaa darteedii waxay go'aansaneen qashinka musqulaha lagu saaro qolka lambarkood kadibna loo cadeeyo qofkii helay codka ugu dambeeya qashinka dhammaan lagu ururin doonaa qolkiisii korintiisa lacdo dhammaan si toos ugu heshiiyeen u codeeyeen lambarka 8 sababtoo qolkeedii wuxuu si fudud u keedin jirtay qashinka markii codkeedii la tirtay lambarka 8 laga soo baxay waa idinay qabasho arintaas waxay dadka ka carisiisay laakiin waxaan ogaanaynaa in ficilkoodii aad u kacayo kadib murankii lambarkii 8 wuxuu isku xirtay qolkeedii cuntadii la baxsatay dhammaan way agaajooday waxba ma haynin arintaas dadka ka cirisay laakiin waxba kama qawan karin gaajadii waxay gaartay heer lambarka labaad ee goosatay waqtiga meesha ay dhamayso banaanka u baxdo si cunto markuu siyaas arkay lambarka koowaad ee lugta qabto wuxuuna ku yiri fadlan siyaas sameynin waxaan u baahanahay 1 milyan fadlan dhowr maalmood oo kale markii jinsu arkay xaaladiisii wuxuu go'aansaday inuu xalliyo dhibka wuxuuna qaatay go'aanka qashinka dhammaan qolkiisii lagu ururiyo isla markaana u tagay laakiin ka bixiyay lambarka 8 lambarka afraad ee sidoo kale ku Jason waxayna kala qayb kamid ah qashinka ay qaadato kadibna waxay u tagay lambarka 8 waxayna weydiistay gelin ugu dambeyn dhamaantoodii cuntada ay heleen maadaama lambarka 8 markale kooxda ku soo biirtay kooxdii kale marka dib isku timid waxay loo go'aansanayeen markale dadka maawiila si waqtigoodii u kordhiyaan markan waxay sameeyeen ciyaar cusub dhamaantoodii boqor ku noqon doonaan boqorku wuxuu amar ku siin doonaa qof walba inuu qabto wuxuu doonayo haddii qof jid waxa lagu ganaxi doonaa qori karanto horeen lambarka 8 ayaa noqotay boqorada waxayna lambarka labaad iyo lambarka lixaad ku amartay inay dagaalaan qofna diyaar uma inuu sameeyo arintaas laakiin hojowis in ciqaabi doonto qof kasta way ku qabso waxaana ma dagaal uu dhaxmar lambarka labaad iyo lambarka lixaad halka lambarka labaad dagaalka markii hogaaminaysay laakiin gacanteedii ayaa bilowday in xanuunto taasi lambarka lixaad ka faa'iideystay wuxuuna aad u garaacay ilaa uu ka sigtay inuu noqdo dilaageedii markuu arkay xaaladeedii dhammaan waxay ka qaadeen lambarka lixaad waxayna go'aansanayeen mar dambe dagaal ciyaartuusan ka dhicin dhanka waxay arkeen dagaalka iskiga ku helay 40 saacadood waxay ciyaaray muddo dheer laakiin waxa la yaabay in mar walba lambarka 1 iyo lambarka 4 ay noqonayaan boqorada labadoodii waxay dadka ku amarayeen shaqo qabtaan taasoo dadka dhib weyn u keentay lambarka 7 oo mid uu qalbinayo in wax qaldan yihiin haweenku ilaalin sanduuqa codbixinta wuxuuna lambarka 4 ku badal badalaya markuu aad buu xanaaqay laakiin cid kale uma sheegin wax kullu dig lambarka 4 wuxuuna ku yiri haddii aad markale sidaas samayso dhammaan dadka u sheegi doonaa maalintii xigta markii uu diiday qiyaano lambarka afraad iyo lambarka 8 maysan noqonin boqor qof kale ayaa boqor noqdo wuxuu lambarka 8 qobna shaqo qabto balse way diiday markii isku diyays in loo ganaaxo korontada lambarka lixaad ayaa badbaad sababtoo wuxuu noqday adeegyadeeda sababta lambarka 8 waxay la wadaagi jirtay qolkeedii adeegyada markii sidaas arkeen dhammaantoodii way la yaabeen wuxuu si cad u sheegay in siga lambarka 8 iyo lambarka afraad ay u shaqeyn doonin waxay sameeyeen koox gaar ah waxay lambarka dabaad soo jeeday inuu ku soo biiro kooxdooda
kooxdooda sababtoo waxay ogaan inuu yahay nin aqli badan oo waxtar leh. Lambarka 7 wuxuu ku biiro kooxda waxayna kooxdiisii bilaabeen dadka kala xukumaan. Kooxda kale waxba kama qaban karo sababtoo haddii aysan hogaansamin kooxda lambarka 8 wax cunto lama siin jirin. Kooxda lambarka 8 waxay u sheegeen kooxda kale in dhammaan waqtiga kasbanaa iyaga si u shaqayn doonaan. Si ciyaarta loo xiiseeyo waxay dhaheen qof kasta waa inuu kasbada 2 socodkiisa u shaqaysto. Haddii aad kasbato 2 socod waxay heli doontaa 3 lacagood bonus iyo cunto biyo lagu heli karo. Haddii aad 1 lacag kasbato waxay heli doontaa biyo oo kaliya. Haddii aad 2 kasbato waxay heli doontaa cunto. Lambarka 7 wuxuu yiri qofkii kaalintii koowaad kale uu badbaadi doonaa. 3 qof oo kale waa la ganaaxi doonaa. 3 qof ee heer waxaa lagu xiray kubadii culeyska indhahoodii waa la duubi doonaa. Qofka guuleysta waxaa la siin doonaa ul ay ku garaaci doonaan qofka uu doono. Markay sidaas maqlay aad bay u xanaaqeen laakiin waxba kama dhihi karin. Lambarka 6 ayaa u sheegay inaysan doortaan qaybaha jirkooda oo la xiri doono. Kadibna waxay bilaabeen inay isqariyaan. Lambarka 6 markuu raadinay wuxuuna bilaabay inuu si xun u garaaco. James oo lambarka 3 aad u baqay wuxuuna isku dayay miiska hoostiisa isku qariyo laakiin ku dambeyntii waa la helay. Sidaas ku guuleystay ciyaarta sida xeerku ahaa. James wuxuu indhaha daboolaya wuxuuna garaacaya mid kamid ah kooxda. Markuu ul ku dhufto waxay ku dhacday afka lambarka 1 si aad oo dhiig fara badan ayaa ka baxay. Lambarka 6 iyo lambarka 8 aad bay ugu farxay arintani. James markuu indhahaas ka furo wargarintaasi wuxuuna ku xumaaday wuxuuna raaligelin ka bixiyay lambarkii 1 wuu cafiyay. dibna ciyaarta waxay heleen 6 saacadood oo dheeraad ah. Si ciyaarta loo sii adkeeyo lambarka 6 wuxuu sameeyay xeer cusub in dhamaantoodii tiro qoraan. Haddii ay tirada guud ay ka yaraato 9 waxay heli doonaan lacag. Haddii ay ka badato 10 wax lacag heli doonaan. James aad buu farxay markaas tiro buu qoray. Markii isku geeyeen tirada waxay noqotay 7. Sidaas darteed waxay heleen 7 lacagood waxayna bilaabeen in lambar lacag qof walba ay u qaybiyaan. James wuxuu helo kaliya 1 lacag oo coins ku iibsan karo dhalooyin biyo ah. Dhamaantoodii waxay ogaadeen in lambarka 6 si halka u dhibayo si dadka daaman uma weeliyo oo waqtigu ku kabsado. Maalmo badan u tagay lambarka 6 iyo lambarka 8 waxay maalmo dhubkayn kooxda kale. Dhammaan waxay ka daalan soo gaajada cadaadiska. Waxayna go'aansan inaysan dulqaadan doonin cadaadiska. Waxayna go'aansan meesha ka baxaan cashar u dhiga lambarka 6 iyo lambarka 8 si uu filim qorshahoodii waxay loo kulmay qolka lambarka 1 iyagoo qorsheeyay lambarka 7 ayaa arkay qorshahooda laakiin waxba uma sheegin lambarka 6 iyo lambarka 8 wuxuuna ogaa in labadooda si khaldan u dhaqaan dadka kale. Ugu dambeyn maalintii qorshaha la fulin lahaa ayaa timid halkaas ku dhamaanaysa qaybteeni oo taxanihiini. Waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa soo qanacsano qaybteeni 3 taxanihiini. inta sare gaar waxaan ka codsinaa muuqaalka lana garajana ka subscribe adaka baleekan afro si ku soo gaarto qaybteeni 3. aad iyo aad baa u mahadsantahay daawade.